لا يدخل الجنة النمام قفك دردرالها كان هذا الكقادة كان كلن هذا الكلوجيو قلدا إعدادك مدح اسكو جليه اسكو دفتا كان جنة ما قلب رسولك يدي لبا قبر النبي كريم دي علين قيم بقادو كلا تاجي لبدا قبر عدة كجرتا وكو عذابيهين عمل وينود سدا أوسي وين لقوم عذابيه كان واحد لقو عذابيه مركا طهارة آد اسكو مطهرين وبولي كادة اسكما حاجة جنجرين كان وحوها قف وحوها درا لا قف قدتك هذا الكوكل قاضبه هاي دتك اسكو درا لبدا عمل بلقو كلا عذابيه أبو رسولك يريد لك ويتري ويري نبى النبي قوي عليه الصلاة والسلام وحيري قبل هبلاي اللي يدابا درس كيجا صلاة بدن نبيتو كتا صوم كيجو نواب بدن يهي لكن جار كيجا عرب كود بتاع النبي الله بالكورن مرقاب النبي قلت تاس النار بيكجر تابويدي وكلا يداني كان هبلاي درس كيجا صلاة ديدونا ما بدنو شنتا وقت بإلى لسا صوم كيجو ما بدنو أو بشهر رمضان بيصونتا لكن جار كيجا كان نبض قلبيودي كورن النبي الله مرقاب النبي قلت تاس جنة يكجر تابويدي جنة waxaa lagu mutaystaa cibaado badan hamoodine waxa weyn xaq ilaahay markaad ilaalisid waa faraa'ida xuquuqda bini'aadamkana ilaaliin hadaad xaq ilaahay aad ilaalisid oo xuquuqda bini'aadamka aad ku tumatid xaq ilaahay kaliya janno ku gali maysid ogow gaaladu xuquuqda bini'aadamka aad ba u ilaaliyaan oo waa ka ihsaankoodu adduunka oo dhan soo gaarayo laakiin maadaama xaq ilaahay ay dayaceen xuquuqda bini'aadamka ilaaliyaan janno ku gali maayeen naarun bay ku galayaan ogow hadaad muslim tahay oo muslimad tahay oo adigu isleedahay anigu ilaahay baan aqaana ilaahay baan caabudaya oo xaq ilaahay waan ilaalin xaq bini'aadamkana waa ku tuman hadaad leedahay ma taajna janno ku gali maysid ogow labada xaq ba waa in la ilaaliyo xaq ilaahayna ilaali oo xaq ilaahay waa maxay waa inaad ilaahay aad caabudaa oo cibaadada ilaahay aad u shariig yeelin dariiqada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ilaahay aad ku caabudaa xuquuqda bini'aadamku ay kugu leeyihiin waa maxay ihsaan baad u sameynaysaa ihsaan hadaad ihsaan laga waayo oo nafcigaaga ummadda u gaari waayo sharka ilaahay adiga kugu abuuray ummadda meel kala fadhiiso ka hayso labada حقوق الضوء لبدنا لقوا إلى اليابة علماء دوليهن إحسانك إليهم وإساءتهم إليك إحسانك إلى الناس دتك إحسانك إلهي أديك وكوكو أبوري كدق مضى علمي با إلهي كبر علمي كبر أخلاق وناكسن باللقسيي أخلاق وناكسن مضى لا تحسعوا dhaqaala ilaahay ku siiyay dhaqaalahaaga ku xiriiri ummadda aqliga kartiba ilaahay ku siiyay aqligaaga kartidaada ummadda wax ugu qabo jaarka xaqiisa ilaali hadaad ihsaankii ilaahay kugu abuuray ummaddu ay ka weydo sharba hadana kugu abuurane sharkaaga ummadda meel kala fadhiiso oo adinkaagana ha ku dhibin oo carabkaagana ummadda ha ku dhibin وكنا بدقلي صحابي يمد النبي يجري يا رسول الله إلى دردارا مرقاب النبي يقول أمسك عليك لسانك عربك قبب النبي كويري وابكي على خطيئتك أديك قفك كاد عين اللؤي dadka kala dunuubtooda adiga lagu weydiini maayo adiga aakhira dambigaaga lagu weydiiniye meel fadhiiso naftaada intood xisaabisid dambigaad gashay la ooy dambigaaga ka ooy waliyasa'ka baytuka ba nabigu aqalkaaguna ha kugu filaado aqalkaaga ku ekow reerkaagu ha dhaafin weeyaa reerkaaga saddexdaas waa saddex haddii mid walba la sharxo kutub dhan baa laga qorayaa amsak lisaanaka baa nabigu carabkaaga qabo carabka sidee loo qabanayaa khayr ma ahina sharbaha ku hadlin khayr هذا الخير كو هذا الخير قرآن كو أخري ذكري كو سماء استغفارتك كو بدي عربكاga ilaahay xuskiisa ku qoy ku qo
laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illah ku xidh carabkaaga waxaa lagu qayidaa oo lagu qabtaa ilaahay dikrigiisa haddaad dikriga ilaahay ku xidhi weydid shaydaan baa ku hadlayo hadalkaasi meel kale kuu fogayn carabkaaga qaba macneegu waxay ka dhigan tahay wixii aakhiradaada kaa dhaawacaya ka qabo wixii aakhiradaada kuu toosinayana ku hadal macruuf ku sheeg oo salaada ku tuko oo quraan ku akhriso oo ummadda ugu nasteexee oo islaax kaga hadal oo ummadda ku xidhiidhi oo diin ummadda ugu yeedh oo diin ku baro diina kaga shaqee wabki calaa khati'atika dembiga adiga kaa dhacayna la ooyi dadka kale dunuubtooda walaa taziru waasiratun wisra ukhra dad kale dembi ay sameeyeen adiga lagu saari maayo ogow adiga taadoonbaa qiyaamaha lagala xisaabtamiye intaad adduunyada ku nooshahay naftaada xisaabiyo khayrkaaga iyo sharkaaga habeen walba markaad seexanayso kafadda saar midkee badan hadduu khayrku batana ilaahay ugu xamdi hadduu sharkaagu batana ilaahay caza wajalla u noqo toobadkeen aqalkaaguna ha kugu fillaado khaasatan haweenku gabadhu aqal inay fadhideen sharaf ku leedahay gabdhuhu aqalka intay joogto gabadha muuminadu 20 ciyaal qayladooda waa u sabri kartaa laakiin banaanka haday u soo baxdo dariskeyga gabadh dariskeyga hadalkay ku jiraado uma adkeysan karto waa isku dhacayaan raguna waa bilcaks raggu dibadda markay joogaan 100 nin hadalkooga waa u dul qaadan karaan waa u adkeysan karaan laakiin laba ubadu dhalo aqalka dhexdeeda hadii la yiraahdo ku qabo oo ku seexi labada qayladooda uu boodhanaya qayladooda iga aamusiye ma aamusin kariyo mana seexin karayo waayo meesha aad kala joogtaan baa kala duwan adiga gabadha muslimaday meesha lagugu talagalay waa guriga dhexdeeda sifaad waxaad ku leedahay dibadda markaad u baxda aanad yeelan karin raguna dibadda markay u baxaan sifaad waxay leeyihiin aqalka markay dhex joogan ayna yeelan karin raggu dibadda dulqaad way ku yeelan karaan laakiin aqalka dhexdiisa ilmo yar uma dulqaadan karaan gabadha muuminada aqalka dhexdeeda 20 ciyaala way ku raali gelin kartaa oo mid walba way ku aamusin kartaa mid walba way ku seexin kartaa wayna u sabri kartaa laakiin dibadda haday u soo baxdo islaan kaliya qayladeeda u sabri kari mayso waayo meeshan aad kala joogna ayaa kala duwan meesha ininka la inagu talagalay waa guriga meesha ragga loogu talagalay inay ka soo adeegaan waa dibadda weeyaan marka xuduud baa laynoo kala sameeyay qof walba xadkiisa ha ku sugnaado oo ubadka guryaha ku tarbiyadeeya oo gabdhaheena asturka aqalka ilmaha labadii wada dhalatay buu nabigu leeyahay haday 10 jir gaaraan haysag seexinine wiilkana meel gooniye seexiya gabadha walaashiina meel gooniye seexi tarbiyada ilmuhu aqalka uu ka soo qaato ayuu banaanka ula soo baxaa dhalinyaradena magaalada joogto waad arkaysaan dhalinyarada waad la yaabaysaa dhalinyarada wax la yaaba maaha waayo waxaan u la yaabayn cirkana kamay soo dhicin buurahana kamay soo dhex bixine aqalay ka soo dhex baxeen dhaqankan marka dhalinyaradu banaanka ay ula soo baxeen aqalay kala soo baxeen haday aqalada dadka jooga ay hagaagsanaan lahaayeen ubad hagaagsan ba aqalada ka soo bixi lahaa maadaama waalidadii ay noqdeen kuwa diin aanan danaynaynin ubadkiina iyaguna diin danayn maayaan ogow